waayahay daawadayaal soo dhawaada magaalada Seylac oo xaaladeeda aad u kacsan ciidanka Samaroon oo dagaal u diyaar garoobaya sidoo kale tani ugaas Ciise oo Jabuuti gaaray xaaladda magaalada Seylacna xilligan ayaa ah mid aad u kacsan ciidamo fara badan ayaa magaalada lagu arkaya saaxiibayaal intaan warbixintaan u gudbin marka hore waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto YouTube-keena hadaa ku cusubtaa marka hore YouTube-keena subscribe noo saar soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilow xaaladda Seylac oo aad u kacsan maanta ciidamo fara badan oo ka soo jeeda beesha Samaroon ayaa magaalada lagu arkaya xaaladda xili walbo waxaa la filan karaa in isku dhacyo ciidan ee halkaasi ay ka yimaadaan maadaama qabaa'ilada meesha dega sida Ciise iyo waliba beesha Samaroon oo muddooyinkii ugu dambeysay xiisad kacsanaan ah ee ka jirtay labadaas qabiil laakiin xaaladda ayaa maanta u muuqata mid aad u kacsan isla markaasna waxaa laga baqayaa in isku dhacyo ciidan oo halkaasi yimaado inkastoo ugaaska guud ee beesha Ciise maanta wuxuu gaaray dalka Jabuuti halkaas ayuu odayaashii oo beeshaasi ka soo jeeda ayuuna kula hadli doonaa sidoo kale sida la iskaga dhici lahaa beesha Samaroon oo inta badan duulaan ku ah beesha Ciise si awoodda beesha Ciise dadkaasi u wiiqaan laakiin xaaladda ayaa ah maanta mid aad u kacsan magaaladana waxaa lagu arkayaa ciidamo military ah oo halkaasi la soo dhaway inkastoo halkaasi qabaa'ilada halkaasi dega laga yaabo in ay isfara saaraan maxaa keenay in maalin walba isku dhacyo ciidan ka yimaada meelaha ay ka arimiso ama ay ka taliso maamulka Somaliland miya gees ka wada in ciidamadan ama dadkan qabaa'ilada ah oo walaalaha oo wada dego Boorame Seylac iyo waliba tuulooyinka hoos yimaado idin in qabaa'ilada maayda abaabuleysa ama hub siinaysa laakiin ugaaskii beesha Ciise maanta magaalada uu ka maqayahay wuxuu gaaray dalka Jabuuti halkaas wuxuu kala kulmi doonaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ah dadka ka soo jeeda Seylac iyo Boorame waana qabiilka oo Ismaaciil Cumar Geele oo u dhashay oo ah beesha Ciise beesha Samaroon ayaa awood lixaad leh ku soo bandhigaysa magaalooyinka Boorama hoos yimaada Seylac iyo waliba tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada inkastoo beesha Ciise deegaanada ay wada degaan oo idil loo awood sheeganayo si awood leh waxa la leeyahay beesha Ciise meeshan wax la yiraahdo Ciise kama shaqeeyo buug ee soo bandhigi kartana toona ma jirto waxa way hadii buugaas la soo bandhigane anaga wacd waxa ku mareynaa in aan xarfadaasi aan baaji doono dagaalna aan ku qaado doono meel walba ay joogaan beesha Ciise magaaladan waa ka cirib tirina ay leeyihiin Jabuuti ay leeyihiin Hargeyso waxba kuma lahay taageeyeen beesha Samaroon Jabuuti ay leeyihiin dalkooda waa Jabuuti magaalada aniga dul saarno waa ahayeen awalba anaga ayaa magaaladan ku soo dhaweena laakiin Ciise naftirkiisana wuxuu leeyahay magaaladan awalka hor anaga ku soo dhaweynay dad walaala ehla ayaan ahayn laakiin maanta waxyaabaha ka filayni maanta waxa way inagu duban tahay sababtoo ah ismadeen Samaroon oo maanta shalay adiga aad soo dhaweysateen oo walaalnimo iyo dirisnimo aad ku soo dhaweysateen ayaa maanta idin tagtaagaya ama hub in soo baxay laakiin waxa leeyahay inkastoo hore loo yiri god qiyaana qodin hadaa qodana ha dheereen ku dhici doonto lama oga Samaroon godkiyaas ma ku dhici doonaan mise inkastoo Soomaalidu dad hadii maanta la wanaajiyo wanaagii aad ka filaysay wanaag aad ka sugeen inkastoo Soomaalidu hadii aad wanaag aad u fasho oo wanaag aad u sameeyso mar walibane dhabarka inay ka togtaan ay jecel yihiin Soomaalidu xeerkeeda ayaa sidaas ah maanta dad walaalo ah oo wada dhashay in maanta hub isku qaataan ama is abaabulaan waxa way waa damiir xumo waxa way dad Soomaaliyeed oo maalul isdilayeen waxa way wax laga fiican yahay ayay ahayd inkastoo dadka ay yihiin dad walaalaha oo diris ah laakiin maanta waxa way in hub la isku aruursado la isdilo oo nin walbana la dhaho awooddaada fuul aniga hadaa iga awood badisay magaalada mablihibo waa la isku dhaaranaya la isku hanjabaya yaa awood badan anima iga awood badan tahay waxa inkastoo qabaa'ilada kale tan dadka qaar ay leeyihiin aska dhicisid waxa way ma Ciise ka awood badan ma Samaroon adigana waxa leeyahay ma Samaroon ka xoog badan Samaroon afar xaba Ciise ma ka xoog badan oo maanta aan siyaasad iyo toon aad ku muuqan waxa leeyahay dad qabiilada marka saas u hurinayo qabiilka saas loo hurinaya waa la karkarinaya marka dadkan dad wada dhasho way dad eela way dad waxa way ciish wadaago way in maanta istagtaagaan
ama la isku hanjabo ama la isku dhaarto maanta dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen ama ay fili kareen toona ma aha laakiin dadka Soomaaliyeedna waxa leeyahay warnimayahow sidaan nama anfacda sidaan tolnimo ma aha qaraabnimo ma aha war sidaan xaalka loo dhaamo sidaan waa mid ka fiican hala sameeyo dadku waa wada dhashay waa ehel wax la isku yahay ayaa weyn laakiin maanta in qabiil ahaan la isku dilo ama la isku canaalo ama la isku baabiyo maanta waxa waaye ajir ku helmaysid ahlu naar ayaa tahay dadka Soomaaliyeedna way wada dhasheen inkastoo dadka dad isku dirayo qabaa'ilaadka ma qabiilkaas ka xoog badan colaad ayaa la horinaya marka colaad ayaa la horinaya dad baa colaada ka qayb qaadanaya horinaya waxaas waxa waaye wax fiican ma aha dadku waa ehel way wada dhasheen laakiin waxa leeyahay ma qabiilkaas ka xoog badan waraado xaniyaas leh oo reer heber ka soo jeeda ina maanta sidaas dhahdo waxa waaye waa ceeb iyo fadiixo warniyow sidaas sidaas loo dhaamo saan hal yeelo war arinta inaad dijisaa loo baahan yahay xaalku inaad dijiso ayaa loo baahan yahay maxay tahay marka dadka walaalaha isdilayo maalin walba isku awood sheeganayo oo war cadowga argagixisama iska dhicisan Soomaali sida loo shaqeyn lahaa argagixiso loogu celin lahaa Soomaali miyaa ka shaqeysiin Soomaali ma ka cirib tirtiin argagixisada sida loogu saari lahaa argagixisada sida loogu saari lahaa maad ka shaqeysiin maalin walba inaan walaalka u awood badnaato oo argagixisana aad iska celin wax shaqeynayana ma aha xeer walaalnimada taasna ma aha waxay u baahan tahay arintaas in si dhow si hoos loo fiiriyo dadkuna way wada dhasheen arintaas sida in laga bedelo ayaa fiican arintan sidan in laga bedelo ayaa fiican laakiin dad ayadoo wada shay walaala ah in maalin walba ay isdilaan waa ceeb iyo foolxumo dadka Soomaaliyeedna foolxumo ku ah mustaqbalka siyaasadana waxa waaye mustaqbalka siyaasadana dhaawici karto waxaas oo kale wax loo adkeysan kara maahane war sidan arinta ka bedela saaxiib yaal muuqaalkan haddii idin soo gaarina muuqaalkan la garay si muuqaalkan u gaaro saaxiibo badan si aad uga lataan soo dhawaada saaxiib yaal